caddeynaya halkan uu tahay meygaagle oo aad ku sugan tihiin oo iyo goobaha la isla marayo iyo waxyaalaha la kala qabsaday guulaha la kala gaaray horta saaka halkan 10kii subaxnimo dagaal ka dhacay dagaalka waxa soo qaaday nimankii Islam halkan hadda ka hadlayana waa meygaagle mid fara badan iyo maxaabiisba waa ka haynaa gaadiidna waa ka gubnay wakaaqoodii baabuurtooda waan ka gubnay hadda waxaan maraynaa meesha la yiraahdo hadladay sii socdaan oo ciidanka maraya waxay qabsadeen ma jirto waxay magaalada soo galeen ma jirto waa been iyo kutura ay wadanka kula wareegayeen nimankaas waa meygaagle meeshan hadda ka hadlaynaa joognaa meedkood iyo maxaabiistoodana gacantaan ku haynaa ma garad waata maxaabiista leeg baad ku qabateen maxaabiista ilaa 5 waan haynaa laba dhaawac tahay baabuurta hal gaari baan gubnay oo qori dhishikii saaran yahay waa inta markaa واتهاي تلية جحنوك وحد كمية عيدمية الجماهير تساكت دجال كان كجلا جوبتن فالهدر وحد كور بحسا جوبها لو كل سوي هاي يقولها عاد جاردين يهد هالقى كسوق ساكت عيدك تشيد هورا شبهد يرجع سلا سلامت وحكي صور الميجا قلي جماهير تمشي سوقنا عاد بوجع عبادتين هذا خسارها أنا كهاي لما قالوا وكجبني أفرق أفرنا وأنا كهينا سادر هذا العيد كانوا خصيص على غرلو بدك تدمكه وأنو ضد كإسلام كا وحويا وين الصادون تنمك وكعب هذا السنة وحوي دجالكم منكم حسيس على غور لقدو شوذا قبل كنا وصيد عيا ما كان قرمتنا ويسوق قاعدين أنا وصيد على سنة إن شاء الله هذه لا يقدروا ميت كذي هلكم مشوا ورياي أفرق في محابسنا وكاينا وركم أنت ويان دجالكم واسع الله واتو حي شجر إني ميجا قلق جبين محا من دجالك دقيقة سأنا كجبني بيد ورك أودك تاني أنا كعب هذا السنة دقيقة بحي أنا وكودي marka waxa weeyaan anaga waxay naga gubi karaan ma jirto meegaagle soo gali kartaan ma jirto jiiduna waa la xirantaa sida waa hal gaariya oo iyagu leeyihiin meegaaglada ay leeyihiin waan gubnayna waa been waxa kama jiraan meedkoodii iyo dhaawacoodina waa kuwa hadarta halka yaala ay ka carareen madaxa kaga wata dhabarka kaga wata la sida meegaglana waa naga taagan bismillaahir rahmaanir rahiim waa xawaya kutaanta iyo dhabta waa wax la kala saaro wax isku dhigma maaha عشر كسر لو قلت كذا عشر كوب قلناي هذا ما حقنا يا مرسى قلت قلت المرسى نكى كوباقي ما يقولون قفصناه كاد واتنا نحتاجنا بسم الله وحن هاي دبل فرحان ياسين إسماعيل كترسن قيب تلبي تمناد قال هان قلت له برجاح والله يقول سوق بتاعي دجال كساك دعي قرن الكينيو يهيل دحدة الكل يسوق بتاعي وحلاقي كيني قال الجامع قال إسماعيل يعقال بدنه كتلو سونا قسم على لا رقمي haddana waxa jooga gobolka Sool ee xarunta magaalada Laascaanood si wanaagsan waa layla dhaqmay intaan soo socday inta halkii joogay hatta halkii lagu qabtay halka inkaan ku sugan hayba si fiican baa layla dhaqmay waxaan sheegayaa hooyaday amba dadka asxaabtaydii amba ciidankayga ku daawanaya waa nabad qabaa lugta uu dhaawacayga soo gaaray raguna waa istila waan kala adkaadaan imkan halkaas aan ku suganahay magacaygu Axmed Cabdi Aadan oo ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland oo qable qaybta 12aad guutada Birjaax dagaalkii saaka ayaa laga soo qabtay ka dhacay Boorarkan iyo ila dhexdiisa ilaa intii la soo qabtay anigoo dhaawac ayaa la qabtay ilaa inta la soo qabtayna wax macnihii dhibaato xataa hadal kulul ma arag ana waxa weeye si qaboob baa la soo qaaday garaadada la keenay iyo ila leegu keenay iminkana halkan waa tan la keenay Laascaanood dhakhtarkan Laascaanood halka waaniga imka ku sugan ehelkaygana waxaan leeyahay iyo asxaabtaydina waa nabadgelyo xaaladu waana macnaha waxa weeye dib ma qabo dhaawaciguna waa adinka suugiga yaala waa xabad marka inay jaban tahay in kale ma kala hubo laakiin waa dhaawac sahlan oo macnaha waxa weeye waa adinkaas oo meel kale waxba kama qabo magacaygu waa Khaliif Xaaja anu saaka goor barqadii baan imi meesha la yiraahdo Boqorkayn waa la qabtay adugu markii goobtii leega qabanayay wax iga gaaray mooyo wax kale ma gaarin hadda waxaan ku suganahay yeelaa la keenay garaadada la keenay imkan waxa la keenay Laascaanood baan joogaa intaan nabad baan ku soo maray nabadgelyo ku imi magacaygu Cabdi Xasan ka tirsan ciidanka qaranka gaar ahaan qaybta 12aad guutada Birjaax waxa laga soo qabtay dagaalkii maanta ka dhacay yeele iyo Boqorkayn dhexdooda iyadoo markaa lugta ka dhaawacmay imkan waa nabad qabaa niman bay dhalinyaro ay soo qabtay way soo gudbiyeen hay'adda garaadada iyo ma sha Allah nabad qabaa imkan habsiga dhexe magaalada Laascaanood magacaygu waa Faarax Awsi meel Boqorkayn ku dhow halkan aynu joognaa waa Boqorkayn oo dhowr jeer oo horena ay ciidamada SSC si hawl yar ku yimaadeen maantana ay dadkii labada laga soo maray ee baabuurta la soo saaray aan hore uga dignay ay ka aydhsadeen
horey baa difaacu ka xidhan yahay halkan waa taliskii dambe waana Boqorkayn magaalada Boqorkayn weyn ilaa 5 kiiloomitir baa ciidanku ka sii horeeyay insha Allah ta'ala hadii la joogsan waayo in badan baa lala hadlay horey baa loo soconaya in badan baa dib loo soo noqday horaa loo soconaya marka gabdhaha ka soo jafaya aynaba iyo burco iyo ciidanka horey baan uga hadlo waxaan ku wiilasha aad baabuurta soo saaraysaan khasab ku soo saaraysaan iyaga oo uba oo dhaawac oo dhintay baa dib loogu sii raraya baabuurta aad soo saarteen waayo wax ka maqan baan jirin dadaan wax ka maqan jirin baa dabada ka soo budlaan maalin walba hal taaka oo dhul ah oo ka maqan aysan jirin dad ka maqan aysan wax ka maqan aysan jirin maalin walba dabada ka soo wada haddii marka la joogsan waayo mar dambe oran mayna joojiya soo wadaanu leenahay waana sii soconaynaa insha Allah ta'ala ciidamaduna waa inay sida ay u diyaar garoobi jireen u diyaar garoobaan waa inay shaqadooda qabsadaan ciidamada SSC meel kasta ay joogaan shaqadooda waa inay qabsadaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh rahmaani rahiim waxa weeye meeshaanu joognaa Boqorkayn waxa weeye nimankii iska socon jiray caruuraha soo diri jiray oo Soomaaliland nimankii la baxay oo isaaq argagixisadii saaka si fiican baa meesha loo salaamay wax fiican bay ka heleen futaday kaga dhigtay afka hore kaga dhigtay xagga dambe ka baxday waxaan leenahay Muuse ciyaalada aad soo dirayso adigu ka soo horeeyo iskeen hadaan in Ilaahay ka dhigay hargeysa kafeeha ku cabine waxaan leenahay hadaan dabdaradana la ka dayn waliyo biliyo tale wax badan baa laga qaadaya oo meeyda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقالة نحتاجنا Boqorkayn دواد أركتان عيال كيرنا اللي سولوا جوني ما نلبس يعرّي سو عرّية وحنو لنا وضن هو أمني نن والبلوكي سيساو هرية هدي الله ودلائي وحي آد هيسان السود دايا أننا وادين شوقنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسم الله البحنتها هالبان له إن بدن بعد نبضكم باغدين عنا قلنا إذن كجمال نهاري من وايد كل رأسنا وحيرات تايمان تاينات كقوسته مردم بنا nabad bariyay nabad aan la bariyay saddex bilood baad nabad ku baaqayseen habar jaclay iyo muuse ciidankiisana waa ku kari weydeen nabadgelyada waxay la tahay maanta kadib ciidanku inuu fasax yahay habar jacla waxaan leeyahay dhulka dhulbahante saddex nooc buu u qaybsan yahay mid ingiriisidiin gacan geliyey midka caankii barakaysnaaya aad idinku nacbaydeen aad ku qabsateen oo oogiya ka mid yihiin iyo kii ingiriisoo ilaa iyo beer ilaa iyo caynaba ingiriisidiin gacan geliyey midaad haddeerto ku dhisteen qori caaladdii quracaasay ahayd meeshii dhalcadda kaga dhawaaqay Boqorkayn markii uu ku dhisayay 9 dhuumood baa lagu dhisayaa ka 9ka dhuumood baa lagaga kicinaya naam 9 dhuumood lagu dhisay 9kii dhuumood aad ku dhistay 9koodii baa lagu duminaya dibna uga wada hadli mayno waxa kamida Boqorkayn waxa kamida balciye oo aad ula baxdeen balci Umar labadaaba waxa lagu duminayaa dhuumihii aad ku dhistay waxaad ka heshaad leedahay maanta kadibna waroy waxay la tahay simadayadii inta nabadda ku baaqayayna inay haddeer quusteen idinkuna taad bilowdeen baa inoo dhex waa inoo caynaba iyo hareeba iyo burcaynaba Allah waxaan ku darayaa laba kelmadood nimankan in badan baa loo digi oo in badan baa nabad laga dalbay nabad laga dalbay alla se kuma toosin waxaan u malaynayaa haruub daadanaya baanu marba rabnaa inaanu toosinno ilaahayna inuu daato ugu talagalay mar dambe toosin mayno haruubkaas waa daatay waxa dabada ka wadaana waxa weeye wax badan oo hore waxa la gabadh xumaat wax hore maxaan ku raahdaa ku badbaadi wax hore bay ku badbaadi deegaano badan oo dada kan ilaha bay hore u degeen shiddana aanay kaga iman oo aanay shidda kaga dhicin laakiin waxaan rabaa inaan ugu bushaareeyo maanta wixii aanu lahayn ee deegaanaha wixii daraawiish ka dambeeyey wixii deegaanay aanu lahayn waanu rabnaa awal waxaanu lahayn war wadada islaamiga ay iska deganaadeen haddayba dhisteen ha deganaadeen laakiin iyagaaba laga waayay annaga inoo hiilinayaan inay nabadda qaadan waayaan waa mid ay malaha annaga noogu hiilinayaanoo
ilaahay baa allah wuxuu diidan yahay alle baa wuxuu diidan waxay xaqdarada ku haysteen bismillaahi raxmaani raxiim waxaan joognaa afaafka hore ee ciidamada SSC waxaanu dhex joognaa magaalada Boqorkayn magaaladii saaka dagaal baa ka dhacay mar labaad bay qoladii soo bahaysteen ilaahayna maaragtay waa jabiyay sidii uu mataqaanaa ay ahaydna waxaanu haysanaa qaniimadoodii dhaawacoodii iyo maxaabiistoodii Trabeela ilmaha reeyal waxaan idin sheegnaa laba kelmadood baan ugu oranaya horta marka intaad Ismaan ku jare iyo Muuse Bixiidin hogaaminayaan oo habar jeclana iska garan lahayd waxaad ku jiraan waxa weeye waxaan u soconaa anagu Caynaba waxaan tagnaa Burco iyo inta ka sokaysa dhulkaasna waa dhulkayagii idinku aad tiraad afka ka tiraadeen ma tagi kartaane cag baan ku tageynaa qori baan ku tageynaa tanna hadeer waa hanti aan leenahay gabdhahan bijirayna waa ku guursanaynaaba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi يا فدي سمعنا علي ها والله بنت تعبر هذا سوق كأنه يقشو هذا يقشو